Assalaamu calaykum dhammaan daawadayaasha sharafta leh ku soo dhowaada barnaamijkeena maanta oo aan ku eegayno mid ka mid ah dalalka ugu taariikhda facweyn Afrika, uguna qanisan dhaxalka qadiimiga ah, dhaqanka, diinta, siyaasadda iyo ilbaxnimada waa Itoobiya, waddan leh sheekooyin soo jiidasho leh oo mararka qaar adag, mararka qaarna la yaab leh, kana buuxa boqortooyooyin, dagaallo, halgan, midnimo, kala qaybsanaan, horumar iyo isbeddel waqti dheer socday. Maanta waxaan si tartiib ah u raaci doonaa raadadka taariikhda Itoobiya laga soo bilaabo ilbaxnimadii Aksum ee qadiimiga ahayd, ilaa boqortooyadii Solomonic, gumaysigii Talyaaniga, xukunkii Mengistu, kacdoonkii Derga, ilaa dowladnimada casriga ah ee maanta jirta. Aan ku bilowno safarkan dheer ee xiisaha badan, bilowgii dalka Itoobiya, Aksum Empire. Taariikhda Itoobiya waxay si rasmi ah u muuqataa qiyaastii kumanaan sano ka hor, gaar ahaan xilligii boqortooyadii Aksum ee la rumaysan yahay in ay ka dhalatay qaybaha waqooyi ee dalka, gaar ahaan Tigreega iyo dhulka ku dhow xeebaha Badda Cas. Aksum waxay ahayd ilbaxnimo aad u horumarsan oo ka mid ahayd xoogaggii ugu waaweynaa Afrika iyo Bariga Dhexe ee wakhtigooda. Boqortooyadu waxay caan ku ahayd suuqyo dhaqameed, ganacsi caalami ah oo gaara ilaa Roomaanka, Carabta iyo Hindiya, waxayna lahayd lacag gaar ah oo ay samaysan jireen. Waxaa kaloo la xusuustaa dhismaha dhaadheer, kuwaas oo weli maanta calaamad u ah awooddii Aksum. Waxaa la rumaysan yahay in Aksum ay ahayd meel ka mid ah meelihii ugu horreeyey ee qaata diinta Masiixiga qarniyo ka hor inta aysan Yurub badankeed qaadan. Sheekada boqoraddii Sheeba iyo xiriirkii Yuhuudda. Mid ka mid ah sheekooyinka ugu jaahilsan ee Itoobiya waa sheekada boqoraddii Sheeba oo booqatay Nebi Sulaymaan oo Qudus ku noolaa. Inkastoo ay tahay sheeko ku jirtay khuraafaad iyo diinta Xabashida, haddana Itoobiyaanku waxay aaminsan yihiin in boqoraddii ay dib ugu soo noqotay dalka iyadoo uur ku sida wiilkiisa Menelik. Menelik wuxuu noqday boqorkii lagu aasaasay boqortooyadii Solomonic dynasty, taas oo Itoobiya maamulaysay in ka badan 2000 oo sano, ilaa la soo gaadhay dhammaadkii qarnigii 20aad. Xilligii boqortooyooyinka Amda Seyon, Saara Yaaqoob iyo Meneligii labaad. Qarnigii dhexe Itoobiya waxay martay waqtiyo dagaal diineed, isku dayo isballaarin iyo halgan ka dhan ah xoogaggii Muslimiinta, gaar ahaan Imaam Axmed Guray oo dagaallo culus la galay boqortooyada xilligii qarnigii 16aad. Waxaa kaloo jiray boqorradii caan baxay sida Amda Seyon oo ku caan baxay ballaarinta dhulka iyo midnimada boqortooyada, Saara Yaaqoob oo kor u qaaday nidaamka Masiixiga iyo maamulka, boqor Meneliga labaad oo ahaa ninkii u diiday Talyaaniga in uu gumaysto Itoobiya, markaas oo uu dhacay dagaalkii caanka ahaa ee Adwa oo Itoobiya ku guulaysatay si taariikhi ah. Adwa waxay noqotay astaanta Afrikaan badan, maadaama ay ahayd markii ugu horeysay ee ciidan Afrikaan ahi guul ka gaadho quwaddii Yurub ee wakhtiga. Xilligii boqor Haile Selassie. Haile Selassie waa magac aad looga yaqaan dunida oo ay Rastafariyanku si weyn u maamuusaan. Wuxuu xukunka qabtay qarnigii 20aad qaybtiisii hore, waxaana lagu xusuustaa iskudaygiisii casriyeynta dalka, inkastoo ay jireen dhaliilo badan oo ku saabsan cadaalad darro iyo musuqmaasuq. Sanadkii 1935 Talyaanigu wuxuu isku dayay mar labaad in uu qabsado Itoobiya, waxaana la galay dagaalkii labaad ee Talyaanigu ku qaaday, kaas oo Haile Selassie dalka kaga qaxay, laakiin ugu dambayntii Talyaaniga laga saaray markii ay xulafadu ka caawiyeen dagaalkii labaad ee adduunka. Dowladdii Derga iyo Mengistu. Kadib afgambi dhacay sanadkii 1974, Haile Selassie xukunka ayaa laga tuuray, waxaana dhammaaday boqortooyadii kumanaanka sano jirtay. Waxaa talada qabtay koox askar ah oo la oran jiray Derg oo uu hormuud ka noqday Mengistu Haile Mariam. Xilligaas wuxuu ahaa mid aad u madow, waxaa dhacay gaajooyin, dagaallo, cadaadis siyaasadeed, dad badan oo la xasuuqay, iyo burbur xooggan oo ku dhacay dalka. Dagaalkii sokeeye iyo soo bixiddii EPRDF kadib sannado badan oo dagaallo sokeeye ah, kooxo mucaarad ah oo ay ka mid ahaayeen TPLF iyo kooxo kale ayaa ku guulaystay in ay talada la wareegaan sanadkii 1991. Wakhtigaas waxaa la sameeyey nidaam federaal ah oo ku dhisan qowmiyado kala duwan, dalka wuxuu galay marxalad nabad ah oo dheer, inkastoo ay jireen cakirnaan siyaasadeed oo mararka qaar qarxaysay. Itoobiyada casriga ah, Abiy Ahmed, dib u heshiisiin iyo dagaallo cusub. Sannadihii u dambeeyey Itoobiya waxay la kulantay isbeddel weyn markii Abiy Ahmed loo doortay ra'iisul wasaare. Waxaa dhacay isbeddello siyaasadeed, furfurnaan, nabad laga dhex sameeyey Eritrea oo muddo dheer colaad lagu jiray, taasi oo Abiy u keentay abaalmarinta nabadda adduunka. Si kastaba ha ahaatee, dalka wuxuu galay dagaallo culus oo ka dhacay Tigray iyo deegaanada kale, taas oo waddanka dib ugu celisay qalalaaso siyaasadeed iyo dhaqaale. Ilaa maanta Itoobiya waa dal leh taariikh aad u dheer, dad kala duwan, qowmiyado badan iyo dhaxal qadiimi ah oo dadka dunida oo dhan soo jiita. Taariikhdoodu waxay muujinaysaa xoog, adkaysi, halgan, guulo iyo casharro badan oo weli ka socda.